warkayga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم وعن داوديال إذا لهانتين بميل والجوتان يسي والبو موقالك يجو إذن سو غاري واحد كسر دواتان برامجك مدشة مقدشة كيبل أو هلا هذان وكلا إذن كجا إمادا موقال باهيان عالمية جنال كيسو سوشيال ما أنت هو مالين ثلاثة قضبة برامجك ساكي أنا إذن كوجه إنه حكمي kulaylka iyo jilaabashada faraha badan ayaa sabab u noqday in la helo kalluun fara badan warbixin xasaasi ah ayaan idinkaga haynaa qodobkaas sidoo kale waa sidee xaaladda habeenkii magaalada sideese dhalinyarada u caawiyaan marka la joogo xilliga habeenkii ah sidoo kale warbixin ayaan daawadayaal idinkaga haynaa markaan aadno dhinaca dibadda ah wadankaasi Jarmalka ayaa go'aan adag ka gaaray ilmaha yaryar ee soonka lagu qasbo iyada oo dadka aan gaarinna go'aan adag laga soo saaray mid ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda Aasiya oo cabsi badan ay ka jirto iyada oo ay dadku arkeen xayawaan weyn oo ka soo baxay badda kaas oo qalqal galiyay wadanka dhammaan iyada oo dadkaasina ay dareemayaan cabsi ku aadan qiyaamaha waa kuwee wadamada ugu yar caalamka kuwaas oo aan lahayn adeegyada diyaaradaha sidoo kalena aan lahayn garoomada diyaaradeed waanu idin soo tabi doonaa oo aan idin sheegi doonaa daawadayaal sidoo kale software markaasi wax lagu xado ama wax lagu basaaso ayaa la soo saaray waxaana lagu dhex shubay aaladda ay dadku aadka u isticmaalaan ee WhatsApp-ka qodobada sidoo kale waxaa ka mid ah 30 jir markaasi xaaskiisa waxbarasho darteed u ciqaabay isagoo waliba u geystay dhaawacyo muuqda qodobada iyo qodobo kale oo aan idin qarinayno ayaa daawadayaal barnaamijka madasha saaka idinkugu soo tabi doona anigoo Cabdifataax ayaa barnaamijka idin soo saaray saaxiibka Cabdifataax Barre ayaa farsameynaya mar kale ku soo dhawaada daawashada barnaamijka oo dhameystiran rasiifarka wadaag maqashay aan kuu macneeyay macaladaga reerkii caruurtii maqsuudkoodii weeyo waa wada kulli idin dhammaantood wax kastoo tabaysaa wadaag waxaad mar qura ku daawan kartaa in ka badan 10 taleefan iyo shaashada TV-gaaga adigoo ka helaya Muqdisho Cable Kids muxuu ahaa eegan TV-shada qaba maxaa loogu Muqdisho Cable Drama waan ku baqay aniga waxay ila noqotay inuu dhaawac ku soo gaaray iyo Muqdisho Cable Films Muqdisho Cable Music Muqdisho Cable Sport aad ka daawan karto ciyaaraha dalka wala badal watasab goal Muqdisho Cable TV aad ka heli karto muuqaalada arrimaha bulshada wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaa xarumaha Muqdisho Cable TV ama wac lambarada shaashada kaaga muuqda rasiifarka wadaag maqashay aan kuu macneeyay macaladaga reerkii caruurtii maqsuudkoodii weeyo waa wada kulli idin dhammaantood wax kastoo tabaysaa wadaag waxaad mar qura ku daawan kartaa in ka badan 10 taleefan iyo shaashada TV-gaaga adigoo ka helaya Muqdisho Cable Kids muxuu ahaa eegan TV-shada qaba maxaa loogu Muqdisho Cable Drama waan ku baqay aniga waxay ila noqotay inuu dhaawac ku soo gaaray iyo Muqdisho Cable Films Muqdisho Cable Music Muqdisho Cable Sport aad ka daawan karto ciyaaraha dalka wala badal watasab goal Muqdisho Cable TV aad ka heli karto muuqaalada arrimaha bulshada wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaa xarumaha Muqdisho Cable TV ama wac lambarada shaashada kaaga muuqda rasiifarka wadaag maqashay aan kuu macneeyay macaladaga reerkii caruurtii maqsuudkoodii weeyo waa wada kulli idin dhammaantood wax kastoo tabaysaa
wadaag waxaad mar qura ku daawan kartaa in ka badan 10 taleefan iyo shaashada TV-gaaga adigoo ka helaya Muqdisho Cable Kids. muxuu ahaa eegan TV-shada qaba maxaa loogu Muqdisho Cable Drama. waan ku baqay aniga waxa ila waagaag daawadayaal intaasi aynu kaga gudubno qadaradaasi adeega bulshada ah wali waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka madasha Muqdisho Cable qaybaha hore ayaanu maraynaa qodobada ayaanu goordhow soo qaban doonaa Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay dhinaca gudaha ayaanu ku bilaabaynaa warbixinadeena sidee dhalinyarada habeenkii u caawiyaan marka la joogo magaalada warbixin aad u xiiso badan waxa arintan ka diyaariyay saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Jameyka muuqaal qurux badan nala daawada Muqdisho waa magaalo saxmadeedu badan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan halka habeenkiina ay tahay sidaasi la mid ah hasaatee su'aasha ugu weyn ayaa ah habeenkii waa magaalo noocee ah habeenkii caasimadda ayaa meel xadaaradeedu sareyso isla markaana isugu soo baxaan dadka shaqooyinka ka nastay iyo kuwa qaxweys u soo baxa waxa inta dheer dhalin u soo baxda inay afurka iska soo saaraan maadaama lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan haddaba Muqdisho Cable ayaa u koorgashay jawiga habeenkii ee magaalada iminka waa xilli habeen ah waxaan ku suganahay garoon kubadeed waxa ii muuqanaya dhalin kubad ciyaareysa iyo kuwa daawanayaba in kubad la ciyaaro waa caafimaad jireed in habeen Ramadaan la ciyaarana ayaa ka sii dhigan dadaal kale ay dhalintu sii bixiyaan Cabdalle Xuseen Dhoore waa mid ka mid ah dhalinta habeenkii u soo ciyaar doonta garoonada caasimadda ku yaala waa kan isagoo ii waramay markii ugu horeysay waa hadda Ramadaan soo bilowday habeen koowaad garoonka ku dhilino meeshaan oo soo afurtagna banooni markaas oo afurno xilliga oo afurkii meeshaan ku dhilna aad iyo aad ugu faraxsanahay jawi garoonka oo aad iyo aad u fiican dhalinyaro badan meesha joogto habeen kala duwan leh garoonkan marka habeen koowaad nimaan dhowr mar ka ku dhilay Ramadaan soo bilowday habeen koowaad aad ku aad ugu faraxsanahay sidoo kale Cabdinajiib Xasan Maxamed ayaa isna ka soo boqola garoonka uu iminka ku sugan yahay degmo ka dheer halka uu iminka joogo wuxuuna bidaamiyay in afurka kadib oo garoonkan soo gaaro isla markaana ku faraxsan yahay in xilli habeen ah waliba bil Ramadaan inuu ciyaaro kubad wuxuuna yiri waxaan u soo ciyaar tagnaa ama inaan intaqaanay afurka iskaga saarno garoonkan Salaxan Caalami qaasatan anku ka imaanayna degmo fog xoogay soo wanaag fog tahay marka meeshan waxa uu nimaanaa horto in afurka iskaga saarno marka habeen badan waa leenahay habeenka sabtiyo qaasatan laakiin waa habeenka koowaad ee Ramadaanka si loo galay ku dheelino Salaxan qaasatan Salaxan kan geeska leena anaka ahaan habeen sabtiyeed marka waa ku faraxsanahay anoo ku nimaana degmada Daynile qaabsada xaafadda Oodweyne bisha barakeysan waa ka faa'iideysanayna insha Allah kuwa dheela kaliya ma aha dhalinta caasimadda iskugu soo baxay habeenkii ee waxaa jira kuwa daawada kubadda isla markaana waqtigooda ku lansha afurkana sida iskaga baxsha waa kan Cabdishakuur Faarax Cabdulle garoonkan waxaan u maadaa inaan daawado yani garoonkan waxay maadaa markaas afur kale for example yani markii ay mado kale waxaan daawada asxaabteeda marka qaar waxaan daawada dad kale oo aan aqoon bulshada aan kala bartaa waxaan deganahay garoonka meel dhow oo garoonka waa diriskayga oo aniga bina sagan dhex jooga oo kama dhaabaco dhalinta caweyska u soo baxay habeenkii ma aha oo kaliya kuwa kubadda ciyaara ama daawada oo kaliya ee waxaa jira kuwa jirdhis u soo baxa ee gaara xarumaha kala duwan ee magaalada halkan waa City Cafe waxa ii muuqanaya dhalin jirka dhisanaysa oo qaab kala duwan afurka iskaga bixinaya qaar baa ordaya oo mashiino dheereeya saaran qaar baa biro culus qaadaya qaarna waa la caawinaya oo shaqada jirdhiska ayaa ku cusub waana dhawaangal Maxamed Cabdinuur Geele waa macallin isla markaana goobta aan soo gaaray tababaro ka isla markaana ay dhalin badan ku xiran tahay waxaan salaamayaa bahda oo Muqdisho Cable aad iyo aad u mahadsan yihiin asxaabteeda macallin oo gym ayaan ahay waxaana ka shaqeeyaa gelinka dambe City Cafe halmeetada da waxyar ka taabto waaye gymka laba mid loo tagaa waa weight loss iyo weight gain labada weight loss waxa waaye qofka kg-giisa ku kordho loogu yareeyaa u imaadaa qof style meerana laga dhigaa kiilooyinkiisa la yareeyaa
qofka weydgaankana waxa waaye waa qof fashion ka qayb galaya ama iyo qof ama ka qayb galayo xayeysiin dhar iyo waxaas iyo inuu ma arkin murqiisa soo saarto isku bedelo dhalinyaro inuu noqdo 20 jir camal marka labadaas aan qabanaa oo sida saxda jimka waxa waani ahaanteeda aan dhihi lahaa waxa bisha ramadaanka aad u fiican tahay maadaama qofkii subaxii maalintii waa sooman yahay markuu afuro meeshii cuntadii uu ku seexan lahaa hadduu imaado wax badan oo isbedelayo dadka waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka weyd looska ma arkin oo kg-gooda batay waxaan dhihi lahaa bisha ramadaanka ma arkin oo si fiican u aalmiitayaan Cabbaas waa arday barqaadista xiiseeya wuxuuna sheegay bacdul afur inuu meel kale ku leexan isla markaana uu jirdhiska jecel yahay aad iyo aad u baahansiin Muqdisho Cable iyo saaxiibkay Maxamed meeshaan horta waa jimkan waxaan dhigtaa habeenkii xilliyada habeenkiina maadaama bil Ramadaan lagu jiro xilliga markii la soo afuro kaleeto ama taraawiixda laga soo baxay imaada waxaan aad iyo aad xoogaa waxaan isku dayaa inaan xoogaa jirkeyga kordhiyo aad iyo aad ugu faraxsanahay in Muqdisho Cable ay sameyso barnaamij xilliyadan habeenkii oo kaleeto bisha Ramadaan ah dhalinyarada ma aragteen meeshaan xilliyada habeenkii aad iyo aad bisha markii Ramadaanka ay tahay oo kaleeto inkastoo ay dadka taraawiix waxay iska jiraan caawe laakiin habeenkii inta waa la buuxaa markii taraawiixda laga soo baxo kaleeto dhanka kale dumarka ayaa kuwa jirdhiska ku biiray oo culeyska iska dhimaya lana hana qaaday casriga la taagan yahay Filis Cabdi waa gabar iska dhintay miisaan badan isla markaana xilliga Ramadaanka si laba jibaartay shaqada ay wado waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jimkan City Fitness waxaan wax badan baa isaga faa'iiday guri fadhigiisa wax badan oo iga fiican yahay wax ima tarin guri fadhigiisa mid kaleeto 125 kiilo alxamdulillah haddana 80 kiilo ahay wax badan ay isaga faa'iiday waxaan kula talin lahaa inay jimka dhigtaan oo jirkooda ku dadaalaan fadhi waxba ma taraay guriga habeenkii Ramadaanka ayaa bil nasiino si kala duwan loo nasto dhalinta ayaana kuwa nasiin ahaan u qaata isdhexgal waxayna badankood yihiin kuwa ku faraxsan jawiga degan iyo damaashaadka ay ku jiraan bisha Ramadaan waana astaan ka dhigan farxad iyo reereyn waa hagaag intaas aynu kaga gudubno warbixintaasi xasaasiga ah ee markaas muuqaalada aadka u qurux badan laga soo duubay xilliyada habeenkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho sida ay u caawiyaan warbixintaas waxaa soo diyaariyay mahadaha ka gaadhay saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Jameka markaana waxaan aadaynaa qodobada barnaamijka inooga haray waxaa la yiri WhatsApp-ka waxaa laga helay aalado wax lagu basaaso ama software wax lagu basaaso kuwaas oo lagu shubay aaladda sida aadka loo isticmaalo ee WhatsApp-ka markii ay arrimahaani qubaro baareen ayaa waxaa la sheegay in arrimo kale oo wax la isugu gudbiyo ama fariimo la isugu gudbiyo laga helay aaladda WhatsApp-ka dhexdeeda waxaana arrintani ay noqotay mid aad loo hadal hayo iyada oo baaritaano xoogani ay socdaan qolada loo yaqaano hackerska ayaa lagu eedeeyay in arrimahaani ay raad ku leeyihiin warbixino badan ayaa laga soo saaray iyada oo majaladaha caalamkana ay arrimahaani aad wax uga qoreen sida loo helay ama lagu soo cadeeyay arrintaani taasoo lagu tilmaamay mid ay adeegsadeen dad aad iyo aad ugu xeel dheer arrimaha waxaa la sheegayaa in wadamo fara badan oo aad u isticmaala aaladan ay markaasi laga helay burcadda iyada oo markaasi la helay fariimo qarsoodi ah oo la isku diray burcadda internetka ayay u suurto gashay in ay meel ay joogaanba adeegsadaan aaladan wax la soo gudbiyo ee WhatsApp-ka lagu shubo WhatsApp-ka oo leedahay shirkadda Facebook ayaa sheegtay in arrintani lagu bartilmaameedsaday lambarada tiro la xushay iyo sidoo kale qolo si gooni ah loo xushay sida ay sheegeen qayb ka mid ah software-ka fayraska loo adeegsado ayaa la sheegay inay sameyso NCO Group oo ah shirkad Israa'iil laga leeyahay sida ay ku warantay wargeyska Financial Times
maalin hore ayaa la sheegay in arrimo noocan oo kale ah laga helay gobollo kale oo ku yaala waddanka Israa'iil iyada oo qaar ka mid ah dadka arrimahani sameeyay ay hoos tagaan shirkadda NCO ee laga leeyahay waddankaasi Israa'iil. WhatsApp-ka oo gaaraya 1.5 bilyan oo ruux ayaa taxadar markaasi galay iyada oo arrimahani laga cabsi qabo in ay dad kale u joojiyaan aaladan isticmaalkeeda. waxaa jira cabsi xoogan oo laga dareemayo Hindiya sidoo kale in arrimahani lagu adeegsado waxyaabo carqaladeyn ku ah doorashada waddankaasi ka socota. xataa haddii lagu soo waco oo aadan ka jawaabi karin fayraska ayaa gelaya applicationka barnaamijkaas oo u sahlaya inuu sii gudbo gudaha taleefankaaga kaas oo daatooyinka aad isticmaasho ay u suurtagelayaan inuu qofkaasi arko. lambarkii laga soo wacay ee barnaamijkaas loo adeegsaday ayaa ka tirmaya qaybta wicitaanka oo caadiyan laga taxadiray in la sameeyo raadraac sida lagu xusay qoraallo ka soo baxay aaladaha ama shirkadaha waxbaarayay. intaas kadib waxa ay ku wargelinayaan ururada xuquuqda aadanaha u dooda qobarada ka dhanka ah ammaanka lama markaasi samayn karo arrimo kale oo ku saabsan in qof arrimahani lagu xiro iyada oo keliya laga digtoonaanayo si hufanna loo baari doono kadibna qofkaasi waxa uu sharciga ka qabo lala tiigsan doono. shirkadda NCO Group oo Israa'iil laga leeyahay ayaa horey loogu eedeeyay inay leedahay farsamooyin weerar lagu garan karo dhanka internetka waxaana la sheegay in ay inta badan dadka hackerska ah ee markaasi daatooyinka ka xada aaladaha Facebook iyo WhatsApp-ka ay dhammaantood ka kala yimaadaan waddanka Israa'iil kuwaas oo dhammaantood hoostaga shirkadda lagu magacaabo NCO Group oo fadhigeedu yahay waddankaasi Israa'iil. waa hagaag daawadayaal intaasi aynu kugu gudubno qodobkaasi qodobo badan oo xasaasi ayaa inoo soo socdo markana aan aadno waddankaasi Jarmalka. waddankaasi Jarmalka waxaa la yiri ilmaha yaryar ayaa dawladda go'aan ay ka soo gaartay in lagu qasbo soonka iyada oo cidii arrimahaas lagu xilana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. waddankaasi Jarmalka waxaa ka jiray cabsi xoogan iyada oo markaasi ilmaha yaryar ee xiiseynaya soonka laga mamnuucay iyadoo waalidkii ku qasbaa ilmihiisana la sheegay in markaasi lala tiigsan doono maxkamad sida ay sheegayaan waaxda caafimaadka ee waddankaasi Jarmalka. warbixin la soo saaray ayaa lagu sheegay inay caafimaad darro u keenayso ilmaha iyo tabar darri arrimaha la xiriira in soon lagu qasbo ilmaha yaryar. waxaa la yiri cid alla cidii lagu ogaado arrimahan waxaa laga qaadi doonaa tilaabo sharciga waafaqsan iyada oo markaasi lala tiigsan doono maxkamad. durba waxaa la helay ilmo yaryar oo aad ugu dadaalaya in ay soomaan kuwaasi oo iskood isu xilqaamay iyada oo Jarmalka arrimahaasina ay ka digeen sababo la xiriira ilmaha caafimaadkooda oo loo cabsanayo sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee waddankaasi Jarmalka. dad kale oo ku adkeysanaya in ay ilmahooda tababaro siinayaan si ay u soomaan sanadaha soo aadan ayaa iyana looga digay inaysan arrimahaasi ku laabanin haddii kale ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo ka dhalan karta 3 sano oo xariga iyo waliba ganaax lacageed oo aan la sheegin qiimaha ama heerka uu yahay. dadka muslimiinta ee waddankaasi Jarmalka gaar ahaan ilmaha ayay soo wajahday cabsi fara badan kuwaasi oo doonaya in ay soonka ka faa'iideystaan isla markaana ay soomaan inta karankooda ah. ha yeeshee arrimahani ee ka soo baxay waaxda caafimaadka ee waddankaasi Jarmalka waxa ay carqaladeynayaan tababarkii soonka ee u socday ilmahaasi iyada oo waaxda caafimaadka ee dalkaasi Jarmalka ay ku andacoonayaan in ay ka naxayaan mustaqbalka dambe ee ilmaha kaasoo la sheegay ama ay sheegeen in haddii ilmaha soonka lagu qasbo ay ka dhalan doonto tabar darri aad u baahsan iyo waliba caafimaad darro sida markaasi waaxda caafimaadka ay bogaga caalamka ama majalada caalamka ay ka soo xigteen. waagaag intaasi qodobadaasi aan kaga talaano markaan waxaan u laabanaynaa qodobada markaasi gudaha iyo waliba warbixinada kale ee ay diyaariyeen wariyaasha Muqdisho Cable.
waxaa la leeyahay sidee ku heli kartaa shaqo markaasi degdeg ah ama waxyaabo kuu fududeynaya in aad shaqo hesho. warbixintaani oo aad u kooban waxaa markaasi soo jeedinaysa wariyaheena Faa'isa Cabdikaafi Xasan. waxaa laga yaabaa inaysan fududeen inaad hesho shaqadii aad ku hangweyneed, haddana waxaa kasii daran haddii aadan aqoon waxa ay badrooniyadu doonayaan. qaabka shaqaaleysiinta dunida iyo shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba waa ganacsi si dhaqso ah isku bedelaya, balse waxaa jira shay aan la yareysan karaynin, waa wareysiga foolka weli waa waxa ugu muhiimsan marka laga hadlayo hanaanka shaqaaleysiinta, ayuu yiri Jane Tobin oo ah qabiir dhanka shaqaaleysiinta oo ka tirsan Loyan Planning Group. waxay aaminsan tahay in awoodda aad u leedahay inaan su'aal uga jawaabto qof amaba guddi hortiisa ay dhisi karto ama ay burburi karto xirfadaada. sidaas darteed waxaan halkan kugu haynaa talaabooyin ka caawinaya inaad meel iska soo saarto wareysigaas. qodobka koowaad, samee baaritaan. wax ka ogow cidda su'aalaha ku weydiin doonta, waxna ka baro iyaga intaad awoodo. si qoto dheer u baar shirkadda, maxay qabataa, yaa ka mas'uul ah, waa kuwa shirkadaha ugu waaweyn ay tartanka kula jirto. meesha ugu habboon ee baaritaankaas laga bilaabo waa website-ka shirkadda. sii diyaarso qoraallo, baro magacyada, iskuna diyaari marka uu wareysigu dhammaado inaad weydiiso su'aalo muujinaya baaxadda uu la eg yahay baaritaanka aad sameysay. waa wax aad sameyn karto maalin ka hor maalinta wareysiga si aad u diyaar garowdo una noqoto qof isku kalsoon. qodobka labaad, muraajaco samee. diyaarso liis ay kugu qoran yihiin su'aalo macquul ah ee laga weydiin karo, islamarkaana iskuna day inaad jawaabahooda sii muraajaceyso. haddii ay kugu adkaato, waxaa jira meelo badan oo baraha bulshada oo aad ka heli karto qaar ka mid ah su'aalaha wareysiga la isku weydiin karo. marka aad diyaarsanayso jawaabaha, u fikir sida inaad sheekeynayso. diyaarso tusaalooyin habboon oo aad ku muujinayso halka, goorta iyo qaabka aad ugu soo bixi karto dhammaan xirfadaha laga doonayo qofka. tusaalooyinka la xiriira guulahaagii iyo khibradaadii hore waa inaad ka turjuntaa waxa aad ku kordhisay meeshii hore ee aad ka shaqayn jirtay iyo waxa aad ku soo biiri karto shirkadda aad shaqada ka doonayso. qodobka shanaad, ka fikir dharka aad xiranayso. aragtida ugu horeysa waa muhiim. qaar ka mid ah bedrooniyada waxay go'aan gaaraan sodonka ilbiriqsiga ugu horeeya. waa laga yaabaa inaad si fiican uga jawaabto su'aalaha, laakiin haddii uu dharkaaga niyad jabiyey markii horeba, waxaa qarka u saarantahay inaad guuldareysato. Finji Steeman oo ah qabiir hore oo dhanka shaqaaleysiinta ayaa dib u milcisanaysa nin shirkadda warbaahin shaqo ka soo codsaday. afkiisa oo urayay iyo nadaafada daraadeeda jirkiisa ayaa qolka qabsaday kahor inta uusan soo gelin. aad ayuu labiskiisa u xumaa, sigsaantiisana way shiirayeen, timihiisuna si fiican uma shalaysaneen. shaki kuma jiro, shaqadii ma uusan helin. inkastoo laga yaabo in shirkadu ay leedahay siyaasad ah in dhar caadi ah la iska soo xirto, kama rajaynayn inaad soo xirato James. khubarada shaqaaleysiinta ayaa kugula talinaya inaad soo xirato dhar habboon sida suud. hubi in dharka aad wareysiga ku aadayso aad diyaarsato oo aad sii feereysato habeen ka hor si aysan degdeg ugu noqon. gaariga aad meesha ku tagaysana ha ku dhex cunin cunto dharkaaga haleyn kara. qodobka afaraad, si fiican u gacan qaad. waa waxa laaba ilowno, balse waxaa laga yaabaa in qof ka mid ah guddiga uu kugu xukumo gacan qaadkaaga. waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya ee dhaca marka aad qolka gasho. inaad qofka si fiican u gacan qaado waxay muujinaysaa inaad tahay qof isku kalsoon. haddii aad ka walwalsan tahay qaabka aad u sameyn doonto, kusii barbaro saaxiibadaada maalin wareysiga. hubi inaad xiriir indhaha ah la sameyso qof walba oo aad salaantay. mar walba tiish ha kugu jiro jeebka, qofna ma doonayo inuu salaamo gacan dhididaysa.
qodobka shanaad dhoola cadee uma fududa sida afka looga dhaho marka wadnahaaga boodboodayo calooshaadana ay gariirayso oo aadna ka walwalsan tahay inaad ilowdo magacaaga balse dhoola cadeyntu waa luuqad caalami ah oo micnaheedu tahay waan ku faraxsana inaan halkan imaado waxaan ahay qof fiican sidaas darteed si fiican u dhoola cadee marka aad qolka gasho iskuna day inaad dhoola cadeyso inta badan intuu wareysiga socdo waa hab fudud oo lagu kasbado buundooyinka sidoo kale xusuusnow inaad si hagaagsan oo toosan u fadhiisato hoosa u foorarsan qodobka lixaad xakamee neerfahaga walwalka badan wuxuu sababaa in dhammaan baaritaanka aan soo sameynay iyo wixii aan soo xifdinay inaan ilowno ama waxa ay sababaan inaan gacmaha ka dhididno haddii aad ogtahay in neerfahaga uu yahay cadowga ugu weyn usii diyaargaroo xoog u neefso adigoo sugaya in qolka lagaaga yeero khubarada shaqaalaha waxay soo jiidanayaan inaad diiradda ku saarto jawaabaha qodobka 7 noqo qof soo jiidasho leh wareysyada foolka ah waxay fursad ku siinaysaa inaad qofka u muujiso waxa aad tahay waxa aad ka hesho sida uu sheegayo Dorment Trone oo maamula shirkadda dhismaha ka shaqeysa sidaas darteed ka hor inta aadan u fadhiisan wareysiga ka fikir qofka aad tahay u qaado fursad aad ku muujinayso qof ahaantaadaba waxaad uga duwan tahay dadka oo dhan marka uu wareysigu dhammaado u sheeg sida aad u jeceshahay shirkadda iyo sida aad ugu farxi leed haddii aad fursad u hesho inaad halkaas ka shaqeyso waxaa laga yaabaa inaad taas kaga guuleysato qof kale qodobka 8aad haniyad jabin haddii aad dareento inaad tariinka ka dhacday oo aan shaqadaasi heli doonin hamoodin inaad si hagaagsan oo toosan u fadhiisato hoosa u foorarsan qodobka 6aad xakamee neerfahaga walwalka badan wuxuu sababaa in dhammaan baaritaanka aan soo sameynay iyo wixii aan soo xifdinay inaan ilowno ama waxa ay sababaan inaan gacmaha ka dhididno haddii aad ogtahay in neerfahaga uu yahay cadowga ugu weyn usii diyaargaroo xoog u neefso adigoo sugaya in qolka lagaaga yeero khubarada shaqaalaha waxay soo jiidanayaan inaad diiradda ku saarto jawaabaha qodobka 7 noqo qof soo jiidasho leh wareysyada foolka ah waxay fursad ku siinaysaa inaad qofka u muujiso waxa aad tahay waxa aad ka hesho sida uu sheegayo Dorment Trone oo maamula shirkadda dhismaha ka shaqeysa sidaas darteed ka hor inta aadan u fadhiisan wareysiga ka fikir qofka aad tahay u qaado fursad aad ku muujinayso qof ahaantaadaba waxaad uga duwan tahay dadka oo dhan marka uu wareysigu dhammaado u sheeg sida aad u jeceshahay shirkadda iyo sida aad ugu farxi leed haddii aad fursad u hesho inaad halkaas ka shaqeyso waxaa laga yaabaa inaad taas kaga guuleysato qof kale qodobka 8aad haniyad jabin haddii aad dareento inaad tariinka ka dhacday oo aan shaqadaasi heli doonin hamoodin inaad intaas ku ekaato waxaa laga yaabaa inaad aaminto in guddiga uusan kugu qancin balse waxaa laga yaabaa inaad qaldan tahay jawaabta xigto ee aad bixiso ayaa laga yaabaa waa hagaaga aad bay u mahadsan tahay wariyaheenna Faa'isiya Cabdikaafi Xasan Faa'isina qodobadii barnaamijka ayaan weli ku guda jirnay markaana waxaan aadaynaa 30 jir xaaskiisa markaas ciqaab adag iyo waliba nabarro muuqda u geystay sabab la xiriira waxbarasho darteed 30 jirkaani u dhashay ama la yiraahdo ama lagu magacaabo waxa lagu magacaabaa ninkani Abu Muslim al-Ahmadi oo u dhashay wadankaasi Bangladesh ayaa waxaa markaas la sheegay in uu wiilkaasi dhalinyarada dilay ama faraha ka jiray xaaskiisa oo markaasi ku mashquulsaneed waxbarasho ninkani maseersan ayaa la sheegay in uu xaaskiisa u geystay jirdil muuqda ninkani lagu magacaabo Islaam Mukhtaari kaas oo markaasi nin markaasi 30 jir ah oo u dhashay ama ku jooga wadankaasi Bangladesh arrimo la xiriira
arrimo la xiriira xaaskiisa oo uu nabaro xanuun badan ku dhigay. arrimuhu waa is soo tirayeen kadib markii ninkani eedeymihiisa ay bannaanka yimaadeen. ninkan maseersan ayaa wajahaya xabsi kadib markii uu faraha ka jaray xaaskiisa oo bilowday waxbarasho iyada oo aan wax fasaxa ka qaadan. rafiiqul islaam oo 30 jir ah ayaa indhaha iyo afka ka xiray xaaskiisa oo Xawa Akhtar oo 22 sano jir ah isaga oo sheegay in uu siinayo hadiyad la yaab leh. Master Islam oo shaqaale qaxooti ku ah Imaaraadka Carabta ayaa xaaskiisa ugu dooday in uu wajahayso ciqaab daran haddii aysan joojin waxbarashada. markii uu ku soo laabtay Bangladesh waxa uu doonayay inuu wada hadal ila yeesho. Master Akhtar ayaa sidaas u sheegtay majalada caanka ah ee The Times. waxa intaasi raacisay indhaha ayuu iga xiray, gacmahaygana waa uu isku xiray isagoo sidoo kale afka iga daboolay sida ay sheegtay. waxaana uu hadiyadii markaasi waxaana ii sheegay bay tiri in uu hadiyad isiinayo ka yeeshee taasi bedelkeeda farahayga ayuu iga jaray isagoo markaasi ila dhaqmay si arxan daran. Maxamed Saaludiin oo ah hoggaanka ciidanka Bangladesh ayaa sheegay in Master Islam uu qirtay kadib markii lagu xiray magaalada caasimadda ah ee Dhaka. waxa uu wajahayaa eedeynta ah inuu kiciyay ama ku ciyaaray xubnaha jireed ee xaaskiisa isaga oo gabadfal u geystay xaaskiisa. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dalbanaya in ninkani xabsi daa'ina looga xukumo iyadoo dadka qaarna ay dalbanayaan in ninkani guud ahaantiisba la dilo. wuu xanaaqay, wuu masiirsanaa maxaa yeelay wuxuu heer tacliin ah gaarsiisanaa fasalka 8aad iyaduna waxay ka baxday college-ka si ay u sii wadato waxbarashadeeda ayuu yiri Master Saaludiin oo ah hoggaanka ciidanka oo ka waramayay gabadhaasi xaaladeeda. Master Akhtar oo ah ninka la xiray ee gabadhan faraha laga jaray qabay ama ahaa sayga gabadhan ayaa ku adkeysanaya in ay barato Master Akhtar ayaa ku adkeysanaysa waa gabadhe inay barato waxbarashadeeda isla markaana ku sii adeegto iyadoo sheegaysa inaysan jirin cid ka hor istaagi karta inay horumar gaarto. bishii June ee sanadii hore nin shaqo la'aan ah ayaa xaaskiisa indhaha ka bixiyay iyadoo ahayd caawiye professor jaamacadda Dhaka. sida ay u muuqatay awood uma yeelanin inuu ka hor istaago inuu joojiyo waxbarashada. ha yeeshee aniguna sidaas darteed waxaan ku adkeysanayaa inaan sii wato waxbarashadeeda iyada ayaana ah hoggaanka rasmiga ah ee nafteeda ayay hadalkeeda kusoo gabagabaystay. Master Akhtar oo ah gabadha sida arxanka daran loola dhaqmay ee faraha laga jaray. waagaaga daawadayaal qaybihii dambe ayay barnaamijka ayaanu maraynaa markana aan aadno dhanka iyo wadanka Philippines. wadanka Philippines waxaa ka taagan cabsi xoogan iyadoo oo ay ugu wacan tahay xayawaan weyn oo ku soo caariyay badda kaas oo ay dadku dareemayaan cabsi walwal iyadoo oo arrimaha dadkaasi ay ka cabsanayaan ay ka mid yihiin ama ay uga shakinayaan in uu dilaacay qiyaamaha sida ay majaladaha ka soo baxa wadankaasi ama Philippines ay soo xiganayaan. xayawaankan aadka u weyn ayaa ku soo caariyay wadankaasi Philippines bad ku taala waxaana ay dadku leeyihiin waxa jira ama la gaaray xilliga qiyaamaha waxaana ay dadka guud ahaan u dareereen guryaha iyaga oo sameynaya allabari iyo waliba in ay sameynayaan in ay duceystaan. xayawaankan oo ah mid dhintay oo aan nuuciisa horey loo arag isla markaana isaga dhami ay tini ka buuxdo ayaa ku soo caariyay xeeb ku taala dalkaasi Philippines taasoo keentay in dadka dalkaasi ay duco ku waashaan iyagoo sheegaya in qiyaamihii soo dhow yahay ama la gaaray. bahalkan oo dhererkiisu yahay 20 dhudhun isla markaana waa 20 mitir isla markaana aad u culays badan ayaa soo caariyay xeebta lagu magacaabo Bangaray ee San Antio oo ka tirsan gobolka Oriental ee Mindoro ee dalkaasi Philippines. Tim Ling oo ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee gobolka tagay ayaa dadka ugu codsaday in barta Facebook inay duceystaan isaga oo
qiyaasay in uu markaasi ugu yaraan dhulgariir soo socdo. tani waxay cabsi ballaaran ku beertay dadka waddankaasi Philippines iyada oo ay sheegayaan in xayawaankani uu bilow u yahay masiibo weyn oo dalkaasi ku soo socota sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta. dadka oo dhan ayaa taxadar ku jira iyada oo dhinacyada waddankana la eegayo. sidoo kale dadka qaarkood waxay eegayaan hawada si ay uga digtoonaadaan wax hawada ka imaanaya. qaarkood waxaa markaasi la dhowrayaa ama waaxda saadaasha hawada ayaa bilowday shaqooyin markaasi joogto ah iyada oo baaritaano iyo howlo ka wada dhinaca iyo miisaanka in la ogaado miisaanka iyo cabirka ay ku socoto dabeysha. waxaana waddanka guud ahaan ka jira qalqal xoogan oo ka dhalatay xayawaankaasi badda ku soo caariyey kaas oo nuuciisa aan la garanayn islamarkaana aan la aqoonin magac loo bixiyo. waa hagaag weli daawadayaal waxaan ku guda jirnaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka. qodobo xiiso badan oo aad u xasaasi u ah ayaa inoo soo socda iyada oo qodobadaasina markaasi aanu idinkugu eegayno sida hadba markaasi ay kala xiiso badan yihiin. waa kuwee wadamada ugu yar caalamka kuwaas oo aan lahayn adeegyo diyaaradeed oo markaasi iyo sidoo kale aan lahayn sidoo kale adeegyada markaasi asaasiga ah ee caalamku ay leeyihiin. waxaa jira wadamo fara badan oo gaaraya ilaa iyo 5 wadan kuwaas oo aan lahayn adeeg diyaaradeed iyo sidoo kale ama garoon diyaaradeed kuwaas oo haddana ah wadamada ugu yar caalamka. wadamadan waxaa la sheegaa inaysan lahayn diyaarado waa garoomo diyaaradeed iyadoo isticmaala wadamada deriska diyaaradahooda ama garoomadooda sida ay sheegayaan ama sida laga soo qoray wadamadaasi taariikhdooda ayaa lagu xusay inay yihiin wadamada ugu yar caalamka kuwaas oo aan lahayn adeegyada diyaaradeed. garoomada diyaaradaha waxay muhiim u yihiin dal kasta wayna adag tahay in aad rumaysato inay jiraan dalal aan lahayn garoomo. hase ahaatee tani waa mid xaqiiqo ah oo aad looga soo taxadiray. waddanka ugu yar waa Monaco waa dalka labaad ee ugu yar caalamka ma lahan garoon diyaaradeed xilli ay ku nool yihiin dad aad u fara badan oo maalqabeeno ah. qofka doonaya inuu tago waxa uu ka degayaa garoonka Nice Côte d'Azur oo Faransiiska ah isaga oo galaya safar dhinaca dhulka ah oo qaadanaya 25 daqiiqo waxaana si u gaaro waddankaasi Monaco. waddanka labaad waa Vatican waa dalka ugu yar dunida oo dhan. Vaticanka oo ku yaala bartamaha caasimada ama bartamaha waddankaasi Talyaaniga aanan samaysan garoon diyaaradeed iyadoo ay ugu wacan tahay badka dhulka oo aad u yar ee uu waddankaasi ku fadhiyo. dadka markaasi booqanaya waxay ku qasban yihiin inay tagaan magaalada Rome si ay halkaasi uga bilowdo safar dhulka ah ay ku gaarayaan waddankaasi aadka u yar ee dunida u yar ee Vatican. waddanka saddexaad waa San Marino si la mid ah waddanka Vaticanka. San Marino waa dal dhaca Talyaaniga oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 33,000 oo qofood. dadka kuma tegi karaan halkani diyaarad waayo ma lahan garoon diyaaradeed dadka waddanka oo aad u yar darteed waxaana dadku ay markaasi ka soo duulaan oo aad ugu dhow garoonka lagu magacaabo Rimini kaas oo ku yaala gudaha waddankaasi Talyaaniga. waddanka afraad waa Liechtenstein waxa uu dhacaa bartamaha Yurub. dadka doonaya inay tagaan waddankani waxay adeegsanayaan garoonka Zurich Airport ee ku yaala waddankaasi Switzerland oo ka fog ama fogaan ahaan u jira 39 kilomitir. waddanka shanaad waa Andorra waa dal yar inkastoo uu dad badan yahay Monaco ama ka dad badan yahay Monaco ma lahan garoon diyaaradeed. dadka tagayana waxay sii maraan garoomada ku yaala Spain iyo Faransiiska iyagoo sidaasi safar dhulka ah ku galaya kaas oo saacado badan qaadanaya si ay u gaaraan waddankaasi Andorra oo ku yaala qaaradda Yurub.
waayahay gabagabadii ayaan isu soo gaarnay waxaan markaasi barnaamijkeena ku soo xiranaynaa mid ka mid ah warbixinada aadka u xiisaha badan ee laga diyaariyay gudaha magaalada Muqdisho waxa la leeyahay kuleelka faraha badan iyo sidoo kale kuleelka iyo jilaabashada faraha badan ayaa keentay in kalluunku caroodo sida ay leeyihiin dad aad ugu takhasusay jilaabashada ama ka kalluumaysiga kalluunka waxay leeyihiin kalluunka oo carooday iyo sidoo kale in markaasi uu jiro kuleel fara badan ayaa sabab u ah inuu kalluunku aad loo helo oo badda uu ku soo bato saasna ay u sahlanaato inaan soo qabanno warbixinta nala daawada والله واسو عرونايا واسو عرنا waxba fakana waxba soo yaacay halkani waa suuqa kalluunka ee degmada Xamarweyne waxa aad hoos ugu dhacay qiimaha kalluunka dhammaan dadkii suuqa ka soo raadsaday kalluunka ayaa la kulmay qiimo aysan filayn oo aad uga hooseeya kay ku soo talagaleen in kalluunku sidaan aad ugu soo raqiiso ayaa loo aaneynayaa kuleelka jilaabashada faraha badan iyo kalluunka oo carooday sida uu qabo Cabdifataax Maxamed Isaaq oo ka mid ah ganacsatada kalluunka ee suuqa Xamarweyne waanka malaaga Xamarweyne khaasatan suuqa waxaan ka hadlaynaa maanta ganacsiga iyo dhaqaaqa kawaanka ma sha Allah bariyahan aad ramadaanka wali lama sheegin ramadaan lamid ah ramadaanka aad aan ugu nimcaysan malaaga waxaana kamid ah toonaha aad u fara badan yahay maalmii waxa la keenay jir hal xabo laba xabo laakiin labadan bil hadda la soo dhaafay waxa la keenay kumanaan xabo shamar way taas waxa ugu wacan shaqaynta badda zaid u bil aa u badatay soo saarka batay waxaana ka sii jecelnahay inuu zaid u sii bato hadda xiisa dambe inkastoo intaas shakhsi ka shaqaysto malaay waa soo caroonaya waa soo carna waxba fakana waxba soo yaacay inta badan biyaha hoos soo aadaya waxa ka shaqaysto waxay tahay doomanka yaryarka anaga aan leenahay doomanka yaryarka nagu filan ayaa aad u keenay aad u shaqaysanaa suuqa kalluunka ee Xamarweyne waxa ku xiran suuqyo kala duwan oo kalluunka lagu iibiyo oo gobolka Banaadir iyo gobollo kale ku xiran kalluunka laga helay maanta badda waxa uu ka badan yahay kii 4 bari laga heli jiray muddooyinkii la soo dhaafay badda sida uu sheegayo mid ka mid ah ganacsatada iibisa kalluunka malaaga awalkii hore wuxuu ahaa xabadda istiwaanaha waxa la geli jiray 170 maanta waa $30 $20 ilaa $10 hadda kan oo kale midkan way markii hore waxa la geli jiray $70 ilaa 80 maanta waa 20 ilaa 30 kiiladii waxa la geli jiray $3 ilaa $4 maanta waa $1 qiimaha kalluunka waayadan sidaan hoos ugu ma dhicin waxaana ugu wacan kuleelka farqiga u dhaxeeya qiimaha kalluunka ramadaankan iyo ramadaankii hore waa mid aad u kala gedisan waxaana sharaxaya Xasan Saalax Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee kalluunka wallahi maalimii hore ramadaankan isqal maaha ramadaankii hore si hore bixis zaid u qodnaa qalib u ahay baaqantay laakiin ramadaankan aan midda kale alxamdulillah aad buu soo jabay markaas waay ramadaankan ay kuleela la jiri kuleelka kaas bishii hore macna kale dambeyn uu jirno tahay kalluunka barkii ramadaan lawa ama 3-4 bilaabto aw soo badanaay la tarmaraani ramadaanka waxa uu dhacay waqti kuleelak macna meeshu waxa soo kuleela oo maali iyadoo kuleelkii socdo oo malaayii socdi oo malaayii zawza aadin badii ay waxa heshay aran roowe heshay أنا ربي أبغى أسيزايد الحمد لله والله ما أنت آتي هذا وصل جراء وأنا رخيص وبيع وسودا بيع ومروع ها أجل ترى رمضان كان لك بشهر رمضان أو بدل ملاك أنا أو بدل معك رمضان كي كرو كركني لك ملاك وكل يرانا waxaa arrinkan aad uga faa'iiday bulshada ka kala timid deegaanada gobolka Banaadir waxayna aad ugu faraxsan yihiin qiimaha hoos u dhacay ee kalluunka hadda kawaanka malaayga waxaan soo aadnay kheyraadka badeena inuu ilaahay noo soo baxshay raqiis noo yihiin kiilada $1 yumbiga $2 jeedarka $1 daambirigana hal bar waay qiimo saran ku ogaan kiilada $7 $6 aan ku ogaa jirnay laakiin maanta $1 waay ilaahay noo soo jibsay afur wanaagsan Soomaalido dhan muslimiinto dhan waxaan jecelnahay inay ku afuraan malaayga kheyraadka badeena warbixintaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena madasha Muqdisho Cable oo aan saaka ku eegnay qodobo badan oo gudaha ah iyo kuwa caalamka ah kuwaas oo aad u xiiso badnaa daawadayaal Ramadaan Kariim ayaanu hawada idinka leenahay barnaamijkiina intaas ayaan ku soo afmeerayaa waa Cabdifataax Cilmi Faarax oo idin leh nabadgelyo noqotay inuu dhaawac ku soo gaaray iyo Muqdisho Cable Films Muqdisho Cable Music muqdisho
muqdisho cable sport oo aad ka daawan karto ciyaaraha dalka.